kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya Imaaraadka oo toos markan ula saftay Somaliland hub culus oo laga dajiyay magaalada Hargeysa iyo sidoo kale xaruntii Berbera ee saldhiggii Imaaraadka oo ku lahaa diyaarado dagaal oo lagu arkay hawada Somaliland si ay isaga caabiyaan kuwa Turkida ee hanjabayay saacadihii ugu dambeeyay duqeyn toos ah oo dhanka cirka ka bilaaban karta deni oo isku dayaya markan in uu ka hortago tallaabooyinka ciidanka dowladda federaalka ay ka wadaan deegaanada maamulka Puntland dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo halkaas ka socda cabsi dagaal oo taagan kadib markii taliyihii ciidanka dowladda federaalka ee magacawday uu halkaas dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay filla Soomaaliya oo mucaaradkii qudhooda kala jabisay wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe tallaabooyinka hadda ay qaadayaan Iiraan iyo Mareykanka iyo xogaha waaweyn ee dunida oo dhan ayaa daawan doontaan balse marka hore si aan fafaahinta u gudagalno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso leeg saarto meel fogaarsii qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu kusoo gudbina adigoo rukumanaya barteena YouTube channel sidoo kale furo gambalka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeba waa hagaaga waa 13 bisha July haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen markana adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka markasul ihsaan online waxay diyaar idin la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idin kugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda dowladda isku taga Imaaraadka Carabta ayaa qaaday tallaabooyinkii ugu dambeeyay oo dheeraad ah iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa oo arrimahan la xiriira iyada oo waliba aad ay isku soo tarayaan qorshayaashii ugu cuslaa iyada oo ay Imaaraadku qaadayaan tallaabooyinka ayaa waxaa sii xoogeysanaya dhacdooyinka la qaaday tan iyo markii ay soo tareen dowladaha sida gaarka ah u beegsanayay Somaliland iyaga oo qaaday tallaabooyin cabsi geliyay xukuumadda hadda jirta kadib markii dhaqdhaqaaqyadan ay siyaadeen Imaaraadka Carabtu waxa uu qaaday tallaabo hub culus gaadiid dagaal iyo diyaaradaha dagaalka loo geynayo Somaliland sida xogii ugu dambeeyay aynu ku helnay taasi oo muujisay in ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqyadooda gudaha waxaana ay tallaabo dheeraad u qaadeen hadda sidii ay u soo afjari lahaayeen tallaabooyinka qaar ee cadowga Somaliland ay wadaan sida aynu wararka ku helino xukuumadda Ciro ayaa mar kale dardar gelinaysa qorshaheedii ugu dambeeyay waxaana Imaaraadka uu qayb ka yahay hubka iyo sidoo kale agabka ay adeegsan doonto Somaliland si ay ula dagaalanto cadowgeeda gudaha iyo kan banaanka oo la rumaysan yahay inay wadaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyada culus Imaaraadku waxa uu si toos u cadeeyay mowqifkiisa Somaliland ku aadan isaga oo la saftay waxaana uu markaasi hadda u xoojiyay tallaabooyinkan si gaar ah oo ay u muuqanayso in la qaadayo dhacdooyinkii ugu dambeeyay iyada oo ay la safashada hadda Somaliland oo la saftay Imaaraadku ay muujinayaan dhaqdhaqaaqyo iyo tallaabooyin waaweyn oo ku aadan ama ku gadaaman dhacdooyinka muhiimka ah ee loo qaadayo dulduleelada siyaasadeed ee hadda taagan iyada oo danaha dowladaha gaarka ah ee ku xayiran arrimaha Somaliland aaweedna markaasi u qaadaya tallaabooyinka halista ama qarjeexa lagu tilmaamay inay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee cadowga Somaliland Turkiga, Djibouti, Soomaaliya, Ethiopia iyo dowlado kale oo Kenya ay ku jirto ayaana qayb ka ah oo liiska dowladahaasi soo galay Ciro horey waxa uu qaaday tallaabooyin aad u culus oo uu ku sheegay in dowladaha cadowga ku ah Somaliland ee diidan jiritaanka midnimada iyo madax banaanida Somaliland intaba inay yihiin kuwa waqtiyadii ugu dambeeyay ka shaqeynayay tallaabooyin uu ku tilmaamay dhagar hagardaamo iyo sidoo kale kiis markaa u muuqda inuu yahay baabi'inta jiritaanka iyo sidoo kale Somaliland oo dunida markaasi ka yaabsata ama sameysa kaabayaal kala duwan oo dhaqaale ila muhiim ah iyo sidoo kale wax kasta oo dal soo koraya ama dowladnimo raadinaya oo markaasi meelaha waxay ku tilmaameen hadda dhaqdhaqaaqyada socda qaarkood
inay yihiin kuwii ugu waaweynaa, iyada oo weliba la horseedayo xaalado khatar ah oo ay u muuqanayso in ay kusoo afjari karaan isla tallaabooyinka qaarkood. Waxaana tani ay muujinaysaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ama tallaabooyinkii ugu cuslaa oo ay xooga ku saarayaan ama diiradda ku saarayaan sidii ay u afjari lahaayeen dhaqdhaqaaqyada xasaasiga iyo halista dowladaha waaweyn ee caalamka uga imaaneysa. Waxaana Imaaraadka Carabtu uu go-aan geesinimo leh ku tilmaamay Ciro uu qaaday kadib markii go-aankaasi uu noqday in Imaaraadku uu si toos uga hortegay hagardaamada Turkiga iyo dowladaha kale ee la jiro markaasi ay la damacsan yihiin Somaliland, iyadoo loo qorsheeyay weliba halistii ugu weyneed ee burburin ama loo geysto xukuumad jirta iyo nidaam shaqeynaya in Somaliland lala damacsanaa. Markana dhinaca kale haddii aynu eegno, madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa adkeysanaya go-aankiisii hore ee dagaalka, isaga oo diyaargarow ciidan galay, waxaana uu wadaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey. Waxa uu soo saaray amar culus oo ku aadan in la dardargeliyo qorshayaasha xasaasiga ah iyo go-aanada waaweyn ee la xiriira arrimaha gaarka ah ee diiradda lagu saarayay go-aanka isdifaacidda Puntland iyo tallaabooyinka ay qaadayso. Xukuumadda ayaa kordhisay maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyadeeda, waxaana tani ay qayb ka tahay qorshihii ugu weynaa oo ay u muuqanayso weliba in loo qaadayo tallaabooyin aad u culus iyo dhaqdhaqaaqyo xasaasiya. Waxaana ay ka dhigtay door muhiim ah inay Puntland ka ciyaareyso arrimaha Soomaaliya, taasi oo filla Soomaaliya ku qasabtay iyo Xasan Sheekh Maxamuudba inay qaadaan tallaabooyin waaweyn. Horey waxaa markaasi weerar dhanka afka u qaaday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sheegay in af iyo adinba ay kula dagaalamayaan maamulka uu Puntland hogaamiyo ee Siciid Deni, waxaana markaasi ay horboodayaan ayuu yidhi dana shisheeye iyo sidoo kale danaha Imaaraadka iyo dowladaha kale ee doonaya in Soomaaliya la kala qaybiyo. Waxa uu sheegay in gooni ugoosad iyo kala qaybin dalka ay ka shaqeynayeen Puntland, taasi oo noqotay eed weyn oo loo jeediyo hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo wajahaya eedihii ugu dambeeyey. Waxaana ay markaan diiradda saarayaan dhinacyada qaarkood qorshayaashii ugu waaweynaa oo go-aanadan la xiriira. Tallaabadan ayaana sii noqotay mid waqtiyadii ugu dambeeyey aad isku soo taraysay. Dhacdooyin waaweyn oo ka abuurmayna waxa ay sababeen halis iyo khatar ciidan iyo isku dhacyo ciidanka dhexdooda ah. Taliyaal ciidan ayay filla Soomaaliya la heshiisay, go-aano ayay wada gaareen, waxaana lagu heshiiyey sidii meesha looga saari lahaa Siciid Deni iyo nidaamkiisa. Waxaana hogaaminaya taliyihii ciidanka danab qaybta Puntland oo si guud loogu dallacsiiyey inuu noqdo taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Puntland ka howlgelaya. Waxaana militarigaasi ay noqonayaan ciidankii ugu badnaa ee dowladdu ay ka abaabusho, qaarkoodna hadda tababaro iyo xerooyin ciidan uga socdaan oo ku kala yaala Boosaaso, Galdogob, sidoo kale Garowe, Gaalkacyo iyo Gurceel oo ku dhawaad 2,000 oo askari oo Puntland laga soo qoray tababaro ay uga socdaan, oo 5,007 askari oo ciidamo Soomaaliyeed oo halkaasi lagu tababaray oo gobollo kala duwan ka socda ay 2,000 ka mid ku leedahay Puntland. Waana ciidankii oo hore u qortay Jimcaale Takar oo markaasi ah mid ka mid ah xubnaha ay sida weyn isku hayaan Siciid Cabdulaahi Deni, oo hore u sheegay in Puntland ay duminayaan shakhsiyaad maamulka u dhashay oo kasoo jeeda deegaanka oo xilal u doontay dowladda. Markii kadib Puntland ay xilalkii ay ka hayeen maamulka gudaha ay markaasi ka qaadeen, loona diiday. Weli waxa uu sheegay Siciid Deni isaga oo ku doodaya lana fadhiya qaar ka mid ah waxgaradka dhalinyarada iyo sidoo kale dhaqanka Puntland in qof walba oo xil laga qaado uu federaalka u doonanayo xil kale si uu u burburiyo nidaamka maamulka iyo dowladnimada ka jirta Puntland, ayuu yidhi Siciid Deni oo si caro leh u hadlayay. Dhinaca kale filla Soomaaliya ayaa dawinkii ugu weynaa waxa ay u dhigtay
mucaaradka, iyaga oo sababtay in mucaaradku qudhooda ay kala shakiyaan, sidoo kalena ay kala jabaan. Villa Soomaaliya ayaa la ogaaday in qaar ka mid ah garbaha mucaaradka hadda ee saddexda ah, 2 ka mid ah in iyadu ay xiriir dhow leeyihiin, sidoo kalena ay jiraan dowlado aada ugu dhow markaasi Villa Soomaaliya oo labadaasi urur ama xisbi ama garbaha mucaaradka ka tirsanba aada gacanta uga haya, waxaana ay ka siman yihiin oo gacanta ku wada haysa dhinacyo ay taabacsan yihiin, aadna markaasi loo rumaysan yahay inay ka shaqeynayaan arrimaha qaarkood oo dowladda Qatar, tan Turkiga iyo dowlado kale ay ku jiraan. Waxaana la wada rumaysan yahay keliya garabka mucaaradka golaha mustaqbalka inay yihiin kuwa garab ka helaya dowladda isku taga Imaaraadka Carabta. Xubnihii kale ee ku biiray Villa Soomaaliya garabkeeda waxay noqdeen kuwa helay dhaqdhaqaaqyo military iyo sidoo kale tallaabooyin waaweyn oo hore lagu qaaday, hadda kuwa markaasi aada u sii xoojinaya dhankooda diyaar garowga iyo isu diyaarinta ay wadaan. Waxaana hadda xoogeysanaya golaha mustaqbalka tallaabooyinka ka dhanka ee Villa Soomaaliya iyo garbaha kale ee markaasi mucaaradka ah hadda u dhexeeya. Loolankii ugu weynaase waxa uu yahay midka soo jiitamayay waqtiyadii ugu dambeeyey oo arrimahan lagu soo afjarayo. Ugu dambeyntiina haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira bariga dhexe, Iiraan ayaa sheegtay in Mareykanku uu uga baxay ballamihii horey loo galay iyo heshiiskii afgaradka ahaa ee 60 maalin in lagu meelmariyo loogu talagalay. Waxay sheegeen Iiraan markii ay dalbanayeen in 60 maalmood gudahooda heshiiskaasi lagu dhaqangeliyo inay ogaadeen ama ay ogaayeenba mujaamalada iyo halista Mareykanka uga imaan karto, iyo sidoo kale ballanka baxyada Mareykanka oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid horey usoo jiray, weliba dhowr jeer oo hore heshiisyo iyo shirar laisugu yimid ay Mareykanku ka baxeen. Waxaana ay ku tilmaameen in Mareykanku uusan ahayn dal go-aan leh, iyaga oo weliba ku goodiyey in ay tallaabooyin military qaadayaan, cid kasta oo ka hor timaadana ay cagta marinayaan. Waa Iiraan oo markan ku hanjabaysa inay tallaabo kale oo dheeraada oo military ay u qaadayso dhinacyada ay ishayaan. Tan iyo markii lagu dhawaaqay go-aankan, waxaa aada isku soo tarayay dhacdooyinka military ee taagnaa iyo dhaqdhaqaaqyada durbo ka bilowday bariga dhexe oo weerarada dhanka cirka ay sii kordheen. Waxaana siyaaday tallaabooyinka dhanka cirka ah iyo dhaqdhaqaaqyada aadka u culus, waana midda abuurtay in la kordhiyo duqeymaha dhanka cirka ee Mareykanku uu geysanayo iyo jawaabta Iiraan ee iyana ay bixinayso oo Mareykanka loo geystay. Ilaa iyo dhowr saldhig oo Mareykanku uu lahaa ayay Iiraaniyiintu cagta mariyeen, waxaana ay ku guuleysteen inay soo afjaraan kolonyadii taabacsanayd ee Mareykanka ee ku sugnaa dalal khaliijka ka tirsan qaarkood. Waxaana hadda ay ku goodinayaan mar kale inay qaadi doonaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey iyo go-aanadii ugu waaweynaa oo la xiriira dhaqdhaqaaqyada kama dambeysta ah ee looga jawaabayo arrimahan xasaasiga ah ee lagu eedeynayay waqtiyadii ugu dambeeyey Mareykanku inuu ku lug lahaa. Waana midda isu soo taraysay. Guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.